wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ayaa xarunta wasaaradda ku qabatay shirka dib u eegista daryeelka carruurta iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay hay'adda UNICEF sidoo kale waxaa shirka lagu casuumay isduwayaasha wasaaradda oo ka kala yimid gobolada Puntland. shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray waxqabadkii uu qabsoomay wasaaradda sanadkii tagay iyo qorshaha u yaala 2019 sanadkan soo socda. madaxa ugu sareeya hay'adda UNICEF oo shirka ka soo qayb galay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ay wada shaqayn leeyihiin iyagoo wasaaradda kala shaqeeyo daryeelka carruurta ayaa sharaxay waxqabadkooda ku aadan barnaamijkan. Very top priorities, and I would like to see some more discussion on this, and I would like to take this opportunity to thank you all for your participation today, for coming and having the opportunity to share your ideas, your experiences, and I look forward to very constructive discussion and participation. Thank you very much. wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Maryan Axmed Cali ayaa sharaxday ujeedada guud ee shirkan. shirkan wuxuu bilowday maanta oo 29 ah waxa laga hadli doonaa wixii sanadkii maxaa la qabtay wixii la qorsheeyay sanadkii hore ma la wada fuliyay xagee wax marayaan bariyo kalena waxa laga hadli doonaa qorshaha sanadka 2019 maxaa noo qorsheysan ka wasaarad ahaan inaan qabano waxa laga hadlayna waxa weeye daryeelka carruurta dawladda Puntland daryeelka carruurta dadka carruurta ku nool mandaqada Puntland intaas laga hadlayaa shirakan waa sanadkii labaad aan ka qayb galayo sanadkii horena waxa la qabtay bishii December sanadka kana waxa la qabtay October waa la soo hormariyay marka maanta xisaabta waxay ahayd in la xisaabtamo sanadka wasaaradda iyo UNICEF iyo qolooyinka nala shaqeeyo NGO-yada ah iyo isku duwayaasheena 9 gobol jooga in la xisaabtamo oo laga xisaabtamo shaqadii siday u fushay qof walbana uu soo jeediyo shaqadii loo dhiibay uu soo jeediyo wuxuu ka qabtay iyo wuxuu ka qaban isagoo si u tusaya si bayaan ah dadka meesha fadhiyaan oo dhan waxa ka soo qayb galay ninka u sareeya UNICEF Master Rahama oo Puntland u fadhiyo waxa ka soo qayb galay waaxda carruurta qaabilsan UNICEF waxa kale oo ka soo qayb galay 9 isku duwa ee wasaaradda ku leedahay 9 gobol ee Puntland waxa ka soo qayb galay NGO-yada nagala shaqeeya carruurta oo 3 ah sidoo kale wasiiradda ayaa sheegtay in qaar ka mid ah deegaanada Puntland ay ku guuleysteen in ay ka hirgeliyaan guryo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo carruurta tan labaad oo carruurta iyo haweenka guusha u soo hoyatay ay tahay in markii ugu horeysay Puntland ay heli doonto garoowa aan ka dhisi doono wasaaradda ay ka dhisi doonto shelter carruurta iyo haweenka ah kaasoo aan mar dhow dhagax dhigi doono aan helnayna dhulkii iyo wixii lagu dhisi lahaa labadaba wax weyn ka tari doonta carruurta iyo haweenka mar haday haween tahay haween iyo carruurba labadaba ay ka heli doonaan meel ay resource center meel hadii ay maxaa liiraha dhibaataysan yihiin ay dhibaatada muddo gaaban uga baxaan wasiiradda ayaa sidoo kale taabatay in sanadkan sidoo kale ay ku guuleysteen inay sameeyeen inay guud ahaan joojiyaan carruurta lagu daro militariga isla markaasna la askareeyo ayna u sameeyeen goobo ay wax ku bartaan iyagoo uu keenay agabkii ay wax ku baran lahaayeen waxbarashada goobahaas ay ku baranayeen ay ahayd xirfado loogu talagalay in carruurtu ay ku bartaan waxyaabaha ay u baahan yihiin isla markaasna maskaxdooda ka guuxaya tan kale oo guusha kale oo noo soo hoyatay waxay tahay carruurtan militariga u tagta children on the military yiraahdo ciyaal askar maroodi dawladda uma qorna dawladda carruur uma ogola inay dagaalanto dawladda carruur uma ogola inay militariga u dhawaato kuwaasoo wasaaradda say mustaqbalkooda uga fakarto ay ka soo kaxaysay iyagana 3 guriyeed u ijaartay waxaana naga caawinaysa UNICEF halkaasoo carruurtii daryeel la siinayo la tusayo nolosha siday u arkeen mahana si kale inay tahay gudniinka fircooniga ah waxyeeleeyay haweenka Soomaaliyeed ayay sheegtay wasiiraddu in sanadkan awoodda ugu badan ay saareen si ay u badbaadiyaan gabdhaha ka badbaaday gudniinkan dilaaga
waxaa kaloo jiro gudniinka oo ay wasaaradda ay soo qabanaysay awareness iyo advocacy oo ilaa iyo hadda laba magaalo hore Jalam iyo Buurtinle haddana magaalada isku shuban aan ka sameynay bishii dhaweeyta oo September in 10 tuulo oo hoos joogta magaaladaas degmadaas hoos tagta ay zero tolerance wax gudniin uusan ka dhicin. shirkan ayaa waxaa gundhigiisu uu ahaa sidii caruurta reer Puntland ay u heli lahaayeen daryeel ku filan iyadoo shirku uu ka furmay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland. Bushra Garaase warbaahinta dawladda Garowe.